Kusoo dhawaada video cusub oo aan caawa idiin soo diyaarinay kaasi oo aan ku eegi doono caloosha qofka sida loo yareeyo iyada oo la aadin gym iyo wax la mid ah. Fadlan daawasho wacan videogan caawa. Marka hore waxaan soo qaadanayaa xabad liin ah sida aad u jeedaan. Waa hal xabo oo liin dhanaan ah. Dabadeedna waa la jarjarayaa. Si waxaa loo jarjarayaa small ama aad u yaryar. Si liinta ay u gaarto xaraaradda ama kuleelka. Markii aan jarjaray weelkaas ayaan ku shubi doonaa aniga oo dabadeedna soo qaadan doono hal xabo oo toon ah. Toontan ayaan iyadana sidoo kale u jarjari doonaa. Ku darso qolofka waan ka fiiqay markii horeba toonta. Markii sidaas aan u jarjarana waxaan ku diri doonaa liinta aniga oo isku kay doona hal weel oo weyn. Waxaan isku gey doonaa weelkaas hadda ku muuqanayo ee weyn. Waxaana dabadeed ku diri doonaa liinta iyo toonta aan jarjaray galaas biyo ah. Waa hal galaas oo biyo caadi ah. Waxba ma ku darsanay biyahaasi. Markii aan halkaas isku geeyay dabadeed waxaan la aadi doonaa dabka. Waxaana samayn doonaa in aan karkariyo liinta iyo toonta iyo galaaska biyaha ahaa. Muddo 10 daqiiqo ah ayaana ku daawan doonaa dabka. Waxaan sugaynaa inta ay ka soo karkarayso liinta. Fadlan subscribe codkana furo dabadeedna videogan like sar. Liintii waa ay karkartay. Xaaladiina sidaas ayay isku bedeshay. Dabadeed waan ka soo deji doonaa. Waxaana soo qaadan doonaa galaaskii aan biyaha ku soo diyaarsaday oo faaruq ah. Dabadeedna waxaan ku shubi doonaa biyaha liinta aniga oo iska reebi doona dhammaan qashinka sida qolofka iyo miraha iyo liinta iyo wixii toonta jajabkeedii. Biyaha oo kaliya ayaana galaaskaas ku shuban doonaa. Waan ku shubay waa u jeedaa. Halkaas galaas ayaa waxaan soo qaadan doonaa hal macalqad oo ah malab saafi ah. Malabka saafiga ah ayaan hal qaando ku dari doonaa galaaskii biyaha ahaa. Hal qaando ayaan ku dari doonaa galaaskii biyaha ahaa ee karkarsanaa kana samaysnaa liinta iyo toonta. Aad ayaan iskugu walaaqi doonaa si ay isku dhex gasho. Liinta iyo malabka say isku galaan ayaan walaaqi doonaa. Waxaana caadaysan doonaa muddo 10 habeen ah inaan sidaas yeelo. Waxaa yaraa doonta calooshaada insha Allah.